muddo dheer oo ay ka fikirayeen hirgelinta hal-abuur ganacsi oo ku cusub caasimadda kadib xalay waxay u ahayd habeen uga duwan habeenadii kale oo waxa ay xaflad u dhigteen xarig jarka furitaanka shirkadda ganacsi ee adeegso munaasabadda oo lagu qabtay dhismaha Hiddasoor oo ah meel saldhig u ah dhalinyarada haldoorka u ah bulshada waxaa ka soo qayb galay ku dhawaad 100 ruux oo la soo xulay kuwaasoo qaarkood hore u sameystay ganacsiyo ku cusub dhagaha shacabka maxamed macalin aadan oo ah maamulaha shirkadda adeegso ayaa ka hadlaya waxa uu ka dhigan yahay hirgelinta ganacsigooda cusub iyo waxa ay qabanayaan sababaha loo aasaasay shirkadda adeegso guud ahaan sida aan ka wada warqabno waxaa jira koror iyo baahitaan xoog leh oo ku socda dhanka teknolojiyadda casriga ah guud ahaan dunida gaar ahaan dalkeena muddooyinkii ugu dambeeyana waxaan dareemaynaa inay aad iyo aad u xoogeysanayeen isticmaalka waxyaabaha la xiriira teknolojiyadda haddii ahaa lahayd agabkii la isticmaalaya oo mobaylada iyo kombiyuutarada kuwooda ugu dambeeyey ah ama internetka oo si xawaaro leh looga faa'iidaysanayo agabkaas uu ku shaqeynaya ahaa sidaas la mid ah waxaan dareemaynaa inuu kobac xoog leh ku socday dadka isticmaala internetka adeegyada internetka si gaar ah social mediaha ama baraha bulshada dadka isticmaalaya aad u kordhayeen daraasaadka waxay tilmaamayaan sanadkii 2020 iyo sanadkan 2021 laba jibaar dadka isticmaali jiray tusaale ahaan 1 milyan iyo dhowr boqol kun ay isticmaali jirtay 2021 January 2021 January waxay isticmaalayaan dad kor u dhaafaya 2 milyan oo qof waxay ku siinaysaa marka Soomaaliya gudaha Soomaaliya dadka waxay ku siinaysaa marka sida uu u baahayo ama degdega leh u baahayaan adeegyada internetka iyo isticmaalka baraha bulshada haddaba kobacaas iyo kororkaas xoogga leh ee ku socda baraha bulshada waxay keentay in ay timaado baahi loo qabo in dadka aan yani lahayn tekniika ama farsamooyinka isticmaalka baraha bulshada in ay ku adkaato inay u isticmaalaan ganacsiyadooda hay-adahoodii ama beejidkoodii ay lahaayeen inay u isticmaalaan farsamooyin horumarsan oo lagu horumarin karo ama lagu baahin karo fariimihii ay u baahnayeen inay bulshada gaarsiiyaan waxaa madasha fursad loo siiyey qaar ka mid a dadka samaystay ganacsiyo u gaar ah kuwaasoo hadda meel wanaagsan maraya marka loo eego halkii ay sanado ka hor ka soo bilaabeen sidoo kale marka wadanka hadda isbedelo badan ay jiro qof walba door u qaadana in dhalinyarada shaqo abuur loo sameeyo ay naftirkeeda waxay qayb ka tahay isbedelka maanta wadanka jiro dhalinyarada marka hadda 5 sano ka hor xataa dib u fiirino laguma baraarugsaneyn ama dadkii inay wax qabsadaan way yareen waxaan aqoonay maanta dhalinyarada soo ku fikiraan maanta wax markaa jaamacad markaa dhamaysid in adeerka waxyaabo lamid ah laakiin dhalinyarada hadda maskaxdooda way bedelantay inay bedelantana waxaa u sababay dhalinyarada maanta walaalahooda ama dadka hal abuurada fursadda u siiyay dhalinta hadda soo bixiysay ardayga asigoo jaamacad dhiganayo maanta haddii shaqo abuur loo sameeyo waxaa qayb ka tahay marka inaad qoyska noloshooda aad bedeshay waxaan ku dhaafaa u baahanahay guriga aad soo haysiiseen la arko wuxuu u dhahay sawliis meesha ay ku wada jiraan gurigaan ugu gaadin meesha ka fiirfiiri adaa ku qanacdo markaas aad hoosta jaro haddii kalena lagu kala daro meesha marka digital marketing aad u qiimo leeyahay waxaan qabaa dhiirigelinta caawinada munaasabada kasoo qayb galana inaysan ahaan oo keliya inaan businesska kobcintiisa qayb ka qaadano khaasatan kambanigan hadda uu furo walaalkeen inaan inteena shirkadaha lena aan fursado siino si businesska oo u noolaado u shaqeeyo warbaahinta ka dhex jiray waan ogaa waqti aad fara badan bay ahayd laakiin tviyada la shaqeynayo dhammaantood waxaad dareemi kartaa markuu ka qaaday suuqu sheegay mataqaanaa loo yaqaano warbaahinta maxalliga caadiga xayeysiiska habka xayeysiiska one minute intay qaadaan marka qaarkood waa in aan fici karto qof ganacsigiisa hagaasan uu isticmaali karo weeyaan lacag aad u fara badan marka laakiin loo yimaado digital media wuxuu sahlay 3 mood isku kulansaday ayuu hal mar keliya u kulansaday waa waqtigii uu soo koobay lacagtaadii uu yareeyey oo lacag badan inay kaa baxday meesha laga saaray iyo mataqaanaa transportation-kii safarkii aad geli lahayd oo meesha ka saaray 3 hal markuu kulansaday qofka binaadamka waxa loogu shaqeeyay fadhiga maxamed nuur xuseen oo ah qof caan ka ah baraha bulshada ahna aas-aasaha barta YouTube ee IM252 ayaa dhankiisa ka hadlaya waxa ay shirkaddan uga duwanaan karto adeegyadii kale ay samayn jireen dadka waxayeysiiya
ma ila aragteen inta badan shirkadaha marka wax la xaysiinayo waxaa la soo qaataa fiidiyoyin dad cadaan ay leeyihiin hadda dukaamada markaa wareeg meeqa shirkadoodaa sawir dad cadaan saarayaan gacan cadaana meeqaa lagu arka babadayni soomaal marka shirkadda adeegsi waxaa jeclahay in ama aan ka rajeynaya inay soo kordhin doonto dad actors ah oo Soomaali ah oo wixii jiri kara wixii gali kara hadday sawir noqoto iyo hadday muuqaal noqoto labada point aan rabo in adeegso ay si gaar ah wax qabtirto shirkadaha isticmaalaya haddeer intuusan barnaamijka bilaabanin gabadhaan maandeeqa aan isku baranay maandeeq aad ugu mahadcelinayaa shirkado ayada ee leedahay ee iga sheegtay marka waxaa ku dhahay fursadda ugu fiican hadda la rabo in laga faa'iidaysto dadka adoo kala ku aqoon marka haddii aad tahay qof halka nala fadhiya oo shirkad leh caawa habeenkaagii waxaa rajeynayaa in shirkadda nolol cusub ay u bilaaban doonto mas-uuliyiin ka kala socotay shirkadaha kala duwan ee caasimadda ka jira ayaa iyaguna madashii xalay ka ballan qaaday inay si joogto ah ula falgeli doonaan shirkaddan adeegso. maxamed yaxya jino, warbaahinta nation, muqdisho.